haddaba qaybtii labaad ee barnaamijkani waxaan ku soo qaadan doonnaa qirashadii rasmiga ahayd ee alqaacida ay ku sheegteen weerarkii 11 Sebteembar. haddaba sidee ayay ku fuliyeen weerarkaasi? wakaaladaha wararka ayaa waxay bilaabeen tabinta wararka alqaacida aan ka baahiyey 5tii bishii Agoost 2002. 3 maalin kadib jariiradda Sunday Times ee London ka soo baxda ayaa bogaggeedii koowaad ku soo daabacday raggii weerarka Maraykanka ka dambeeyey. maqaaladaasina waxaa qoray aniga oo ku tarjumay afka Ingiriiska. warkii ayaa ku faafay caalamka sida duufaan dabsida oo kale, laguna qoray luqado badan, waxaana igu soo jeestay indhaha caalamka oo idil, waxaana si dhaqsi ah ku soo gaaray Dooxa. inaan soo gaaro Dooxa oo qadar ah waxaa sabab u ahayd in xaruntii Aljazeera ay soo gaareen canjalado ka yimid alqaacida, mana ahayn canjaladihii aan sugayey aniga shakhsi ahaan, aniga oo filayey in ay yihiin canjaladihii al-saxaab ay sameeyeen oo aan ka sugayey Ramsi. canjaladaha waxaa ka soo muuqday 3 muuqaal oo ay alqaacida markii ugu horeysay ku baahinayaan caalamka. dardaarankii Cabdulcasiis al-Cumari, saaxiibkiisii Maxamed Cadda uu ku helinayay weerarka, codkii bin Laden oo kula dardaarmayo raggii hawshaasi fulinayay. kadibna waxaa soo muuqday raggii sawiradoodii oo mid ah. haddana waxaa ii soo muuqday muuqaal naadir ah in la helo ciidankii weerarkaasi fulinayay oo ku tababaranaya Afghanistan iyagoo ku sii jeeda Maraykanka. sida iiga muuqata muuqaalka waxaan ku arkay qariirado iyo buugaag lagu barto sida diyaaradaha loo hago. muuqaalkana wuxuu ahaa mid aan anigu gacantayda ku duubay kuna duubay guri aamin ah. kadibna muuqaalkii waxaan ka dhex maqlay cod aan sidaasi u fahmin. haddaba codkaasi uma malaynayo inuu noqon karo ilaa qof aan anigu u fahmay inuu yahay Ramsi binu Shaybah. haddaba codkaasi ayaa ah mid ka hadlaya qaabkii iyo nidaamkii loo fuliyey weerarkii daaraha mataanaha ahaa. codkani dhex yaala xarunta Aljazeera ma jirto cid u og inuu yahay ninkii hogaaminayay weerarkii 11 Sebteembar. xitaa cid kale og ma jirto ilaa iyo maanta. waxaan go'aansaday inaan u adeegsan codka Ramsi binu Shaybah ilaa iyo maalinta ugu dambaysa barnaamijka. haddaba markaan ku soo daalay kulan 5 bilood ah oo aan la qaatay madaxdii alqaacida, waxaan go'aansaday inaan ka baxo xaruntii Aljazeera ee Dooxa si aan u dego hotel, isla markaan aan u galo hurdo dheer oo raaxo leh. الو مرحبا يا شريك، كيف حالك؟ ما بعرف وصلك الخبر ولا انه مسكون رمزي بن الشيبة. انت حصل كان habeenka kala barkii waxa ay soo wacay madaxa barnaamijyada Caraari Sharci oo wajiga bambaane iiga dhuftay. waa ay qabteen Ramsi binu Shaybah. hurdadii waan ka booday, waxaan dib u soo ceshtay canjalad dheer oo xasuustaydii ka mid ahayd kulamadii gaarka ahaa iyo kuwii guudba. waxaan raadiyey sababta ay ku dhacday, maxaa yeelay waxaan ahaa suxufi sameynayay barnaamij halis ahaa oo riyadiisii ay ka burburtay. waxaan isku dayay bal inaan ogaado, haddana waan fikiray oo mar labaad iyo mar saddexaad hurdadiina waan ka toosay. waa qiso aanan hilmaami doonin weligay, xitaa hadday sannado badan ka soo wareegto. waxaa wejiga la iga dhuftay qaraxyo waaweyn iyo sakiimo lagu jeexay jirkayga oo idil. wargeyska New York Times wuxuu igu sheegay inaan qisadii qariyey oo aan la xiriirin qaybaha ammaanka dalka Maraykanka. Washington Post waxay igu tilmaameen mid fulay ah oo ka cabsanaya in uu geeriyoodo. Al-Ahraamka Masar waxaa lagu daabacay in aysan rumaysan karin inaan ku guulaysto muuqaalo aan ka soo duubo raggii weerarkii 11 Sebteembar geystay ayadoo aanan wax sirdoon ah igu saacidin.
wargeys ka soo baxaa dalkaasi Lubnaan oo ciwaankiisu uu ahaa Al-Jazeera oo gaartay inay la shaqayso muqaabaraadka Mareykanka ayagoo ula jeeday kulankaygii Bakistaan aan kula qaatay Al-Qaacida kulankaasi oo xitaa uusan ka warqabin madaxdeydii shaqada waxaana u sheegay bil kadib laakiin sheekada quraafaadka ah oo kuwaasi oo dhan ka daray ayaa ah wargeyska Al-Yawm ee Sacuudiga ka soo baxa ayaa lagu qoray sida tan in sirdoonka Mareykanka uu heshiis la galay kanaalka Al-Jazeera isla markaana shakhsi sirdoonka ka tirsan uu la xiriiray Yusri Fuda oo sidaasi lagu dabagalay arintiisa waxaana markaasi sirdoonka Mareykanka ay raadraac ku sameeyeen taleefanka Yusri Fuda sidaana ay ku heleen safarkiisii Bakistaan wargeyska Der Spiegel ee Jarmalka ka soo baxa ayaa sheekadii ka sii daray oo wuxuu qoray moobilkii gacanta aan ku sitay dhirirkiisa midabkiisa iyo inuu ahaa midka kaliya oo dhagaha la gashto midba midka ka sii daran ayaan aqriyay jariiradda bariga dhexe ayaa lagu qoray sirdoonka Mareykanka iyo Bakistaan waxa ay heleen raggii ka dambeeyay weeraradii 11 Sebtembar iyo ninkii u qaabilsanaa warbaahinta Al-Qaacida oo lagu magacaabo Abibakar laakiin Abubakar laf ahaantiisa ma oga inaan ku magacaabay Abubakar ilaa aan ka tabiyo barnaamijkani muhiimadana ayaa ah inaan isaga la qabanin haddaba haddaan eegno dhanka Al-Qaacida laf ahaanteeda waxa ay boggeeda ku daabacday markii koowaad in aan la qabanin Ramzi laakiin anigu waxay igu tilmaameen doofaar qaa'in ah halka kooxo takfiir ah oo aanan horay u maqlin ay igu sheegeen inaan halaagsami doono idinka alle waxay ii ahayd isbuucaasi isbuucii geerida 2 Sebtembar 2002 waxaan ka walwalsanaa xaaladii ka dhacday Karaaji waxay cabsida iigu sii korortay markii aan arkay go'aankii ka soo baxay Al-Qaacida haddaba go'aankaasi ma mid dhab ahaa mise waa mid been ah haddaba waxaan go'aansaday inaan qisadeydii qof shaqaalaha ka mid ahaa aan ugu sheekeeyo kulankii ina dhex maray Khalid iyo Ramzi oo aan kula qaatay Karaaji waxaan sugay isbuuc kaamil ah afkaygana ma aanan kala furin maxaa yeelay dhacdadu waxay noqotay mid aniga laf ahaantayda aan saameyn ku yeeshay markii aan go'aansaday in aan hadlo waxaan ka hadlay kanaalkaygii Al-Jazeera قناة الجزيرة su'aalo dhowr ah aan kaga jawaabay barnaamijkaasi gudihiisa 20 Sebtembar sanadkii 2002 ayaa ahaa kuwo aad u adag waxaan halkaasi u tagay inaan warbixin ka soo helo waxaan helay warbixintii noloshiidii ayaan qatar geliyay waxaan mudanahay mahadcelin haddaanan taasi helinna waxaa dadka ku habboon inay xaaladayda ii daayaan subaxii xigay maalintaasi waxaa soo baxay bayaan cad oo ka yimid Al-Qaacida aniga oo ku hadlaya magaca warbaahinta Al-Qaacida waxaan cadeynayaa wararka been abuurka ah ee lagu baahiyay dunida ee ku aadan kanaalka Al-Jazeera iyo Ustaad Yusri Fuda oo soo saaraha barnaamijka Sirriyun Lilqaaya in aysan wax xiriir la lahayn wixii ka dhacay Karaaji maalmihii la soo dhaafay waxa dhacay waa awoodda Alle iyo xigmadiisa waxaan sidaasi oo kale cadeynayaa in Yusri Fuda kulankii uu la qaatay Khalid Sheikh Mohammed iyo Ramzi bin Shaybah bishii Abriil in Ustaad Yusri Fuda uu ka soo baxay balantii iyo cahdigii uu inala galay iyo sida uu barnaamijkiisi u soo tabiyay haddaba Khalid Sheikh Mohammed wuu iga bari yeelay arintii laakiin muddo 5 bilood ah laga joogay bayaankaasi uu soo saaray kadib waxa uu ku dhacay isaga laf ahaantiisa khiyaano ay sameeyeen rag isaga la socday halkani waa Rawalbandi oo ku dhow Islamabad waxaa gacanta lagu dhigay Khalid Sheikh Mohammed bishii March sanadkii 2003 Al-Qaacidana waxay lumisay mid ka mid ah maskaxdoodii halka Ramzi bin Shaybahna lagu qabtay Karaaji Sebtembar 2002 Zayn Aabudiin Mohammed oo ku caan ahaa Abi Zubaydah isagana waxaa lagu xiray Faisal Abad sanadkii 2002 Maxamed Caadif oo ku caan ahaa Abi Xafsin al-Misri isagana waxaa lagu dilay weerar lagu qaaday Afghanistan October sanadkii 2001 madaxdii Al-Qaacida waxa ay galeen godad waaweyn oo ku yaala Afghanistan ayaga oo ka cabsanayay weerarada kaga imaanaya Mareykanka iyo xulafadiisa
haddaba halkani waa dariiqoodii weerarkii manhattan waxay kiraysteen ramsi ibnu shaybah iyo walaaladii gurigani qayb ka mid ahaa oo ku yaala hamburg oo jarmalka ah waxayna ugu magacdareen gurigani daarul ansaar sida aan ku aragno caddaymo laga hayo maxamed cadda waraaqadihii bangiga sannado ka hor hogaamiyahoodii usaama bin laadin waxa uu guri ku yaala bishaawar oo bakistaan ah ugu magacdaray baytul ansaar qaraxii weynaa ee ka dhacay sacuudiga sannadkii 1995kii waxay sacuudiyaanka ka dalbadeen sirdoonka faransiiska inay qaarajiyaan bin laadin ama ciriiri la geliyo meel waliba uu ku nool yahay وأمريكا وبعض عملائها في المنطقة ساوموني أكثر من 10 مرات على السكوت على هذا اللسان الصغير قال اسكت ونرجع لك الجواز ونرجع لك أموالك ونرجع لك البطاقة الهوية لكن أسكت haddaba intii uu usaama joogay dalkaasi suudaan waxaa garabkiisii ka baxay ninkii uu ku joogay dalkaasi suudaan jamaal axmed alfadal midkaasi oo la baxsaday hanti badan uu lahaa usaama bin laadin isagoo uu isku dhiibay safaaradda maraykanka ee khartuum wuxuu ina siiyey macluumaad badan maxaa yeelay alqaacida wax badan kalama aanan socon qaab dhismeedka kooxda shakhsiyaadka nidaamka ciidanka iyo dhanka maaliyadda sidaasi oo kale wuxuu la socday jamaal howlgallada kooxda oo dhan haddaba daliil ayay u tahay middaani khiyaanadii socotay xilligaasi maxaa yeelay sirdoonka maraykanka waxay ogaadeen in bin laadin uu weeraro culus la damacsan yahay dalkooda ayadoo taasi laga duulayo sannadkii 1996kii waxaa dhacay arrin cajiib ahayd waxaa soo martay maraykanka fursad ahayd inay gacanta ku dhigaan usaama ayadoo aan la sheegin cidda warkaasi soo gudbisay shir ayaa lagu qabtay virginia waxaa shirkaasi ka soo qayb galay mas'uul suudaani ah iyo xubno CIA-da ka mid ahaa kuwaasi oo xukuumadda suudaan ka dalbanayay in loo sheego magacyada shakhsiyaadka sida rasmiga ah u taageera usaama maraykanka xilligaasi wuxuu cadaadis xooggan ku hayay dowladdii islaamiga ahayd ee suudaan ka jirtay laakiin dowladdii islaamiga ahayd ee suudaan ka jirtay xilligaasi maraykanka iyaga ayaa lugtoodii ku soo doontay waxaa jiray warbixinno iyo xidhiiro qarsoodi ahaa oo u dhexeeyey suudaan iyo maraykanka ayadoo labada dhinac ay sir badan isdhaafsadeen waxaana halkaani idinkugu soo gudbin doonaa markii ugu horraysay waraaqadahaasi xasan al turaabi laf ahaantiisa ayaa warqad uu ku raaligelinayo madaxweynaha maraykanka u soo qoray mudana madaxweyne dhankeenna waxaan diyaar u nahay inaan idinka caawino marxaladda cusub isla markaana aan samayno is-afgarad dhab ah oo aan kaga hortegayno canaasirta ka jirta caalamka islaamka ha ahaadeen kuwa ka jirta suudaan iyo waddamada islaamka kuwaasi oo si maslaxad iyo wadajir aan ugu wada shaqaynayno suudaan waxay maraykanka u soo gudbisay magacyadii raggii laga dalbaday waxayna ka soo jawaabtay su'aalihii oo dhan ayadoo taasi laga duulayo iyo sida ay suudaan ugu caan ahayd soo dhiibista dadka laga dalbado haddana suudaan waa ay diidday inay usaama u gacangeliso maraykanka usaamana waxa uu caddaatay inuu suudaan isaga baxo laakiin diyaaraddii siday ayaa ku hakatay dalkaasi imaaraadka si ay shidaal ugu qaadato waxayna maraykanka u ahayd fursad kale oo dahabi ahayd iyagoo ku qanacsanaa saaxiibadoodii imaaraadka waxayna ogaayeen inuu ku laaban rabo usaama beledka alle waa afghanistaan si loo gaaro afghanistaan waxaa loo maraa dalkaasi bakistaan waxaana meesha joogay kooxo mayal adag oo taalibaan ah iyagoo waddankaasi kala barkiisii la wareegay wakhtigana wuxuu ahaa 96dii maraykankana wuxuu sameeyey qorshe cusub oo xiriir fiican uu kula samaysanayo bakistaan waxaan bilaabay inaan kala hadlo diblomaasiyiin reer galbeed ahaa gaar ahaan maraykanka oo ku sugnaa islaamabad waxay aad iigu dhiirigeliyeen inaan buug ka qoro arrimaha taalibaan markii uu usaama xuriyad ku helay afghanistaan wariyahani ayaa kula kulmay usaama markii ugu horeysay dalkaasi mulle cumar ayaa ii dhameeyey la kulankii usaama kolkii aan la kulmay usaama bishii maarch 97dii maraykanka waa ay la yaabeen wuxuuna igu yidhi waxaan maraykanka ciidan ugu dilnay soomaaliya gudaheeda waxayna soo farageliyeen arrimaha bariga dhexe iyagoo sacuudiga garab kaga helaya
weeraradii safaaradaha Maraykanka ee Nairobi iyo Dar es Salaam lagu qaaday sanadkii 1998 waxay noqotay kala tagii Usaama iyo Maraykanka waxayna noqotay arrin cadaynaysa in gorgortankii Usaama iyo Maraykanka uu soo gabagaboobay isbuuciyo kadib waxay Maraykanka Nairobi gudaheeda ku qabteen mid ka mid ah raggii isku qarxin rabay safaaradda waana ninkani Sacuudiyaanka ahaa Mohammed Rashid Awhali that we end up getting Mr. Al-Awali, and Mr. Al-Awali is then interviewed. Awhali wuxuu jawaab siiyay rag ka tirsanaa ciidanka Maraykanka iyo sirdoonka wuxuuna qirtay taleefankiisa Sanca uu ku haystay wuxuuna sheegay in uu doonayay waraqadaha safarka iyo lacag because he wanted travel documents and he wanted money. haddaba haddii ay dhab tahay jiritaanka warkaasi ninkani wuxuu Yemen xiriir kula sameeyay ninkani Khalid al-Mihdaar waxaana taleefanka ninkani ilaala gaar ah ku hayay sirdoonka Maraykanka har iyo habeen ayagoo muddo sanad ah dhageysanayay waxa meesha ka socday waxayna sirdoonka ogaadeen in shir heerkiisu uu aad u sareeyo ay qaban doonaan ururkii al-Qaacida CIA intercepts discussions. CIA-da waxay dejisay qaabkii shirkaasi xog badan looga heli lahaa midkaasi oo ka dhacay Kuala Lumpur, Malaysia, that there's going to be this meeting. haddaba arrintaasi waxa ay soo dedejisay wada shaqayn dhexmarta Malaysia iyo Maraykanka maxaa yeelay Maraykanka wuxuu Malaysia ka dalbaday waxa meesha ka dhacaya in xogtooda loo soo helo and the Malaysian government Maraykanka wuxuu idinka dalbaday inaad arrintaasi dabagashaan soo ma ahan Well, waxaan ka dalbanayaa inaad joojiso mowduucaasi ka hadalkiisa meel ka tirsan Kuala Lumpur iyo deegaan dad fuqara ah ay ku badan yihiin iyo daartaani dheer walibana qayb yar oo daartaani ku dhaxtaal waxaa lagu qabtay shir heerkiisu uu aad u sareeyo waxaana isugu yimid raggani Tawfiiq bin Cadaash oo ku caan ahaa qalaad midkaasi oo la ogaaday inuu ahaa ninkii weerar ku qaaday markabkii Maraykanka USS Cole Khalid Mihdaar iyo Nawaaf al-Hazmi waxay ahaayeen raggii madaxdu u ahaa weerarkii diyaaradaha waxaa sidaasi oo kale la aaminsan yahay in Khalid Sheekh Mohammed laf ahaantiisa uu ku sugnaa shirkaasi xitaa uu joogay Ramzi bin Shaybah laf ahaantiisa The Malaysian special branch sirdoonka Maraykanka waxay Malaysia ka dalbadeen inay u soo sawiraan shirka halkaasi ka socda who were there. And they do take a number of surveillance photographs. waxaynu ka helnay muuqaalo badan shirkaasi ku saabsan iyo taleefono ay ku wada hadlayeen gudaha daartaasi iyo banaankaba ayadoo aan shirkaasi aad u danaynayno ayaa haddana shirkaasi waxa inoo joogay nin inoo shaqaynaya inaga oo qof kale isaga dhigay ma garanaysaa qofkaasi waa saaxiibka Khalid Sheekh Mohammed He's working on your good friend KSM. right halkani waxay ahayd meel aad loo jeclaysto oo Khalid laf ahaantiisa uu jeclaystay waana wadan islaami ah oo muslimiinta aad u soo dhaweeya gaar ahaan kuwa ka yimaada dalalka Carabta sidaasi oo ay tahayna waa wadan albaabadiisa ay furan yihiin waxaana habeenadii la isku dhaafsadaa halkani siro kala duwan sidaasi oo kale waa garoon caalami ah ay ku ciyaaraan sirdoonka Maraykanka waa uu soo gabagaboobay shirkii aan caadiga ahayn wuxuu nin waliba u jahaystay wadadii uu safarka ku ahaa Khalid Mihdaar iyo Nawaaf al-Hazmi waxay u socdaaleen Maraykanka laf ahaantiisa ayaga oo sii marayay Jakarta iyo Bangkok laakiin waxaa muhiim ah inaan fahanno in Maraykanka uu lumiyay raadkii raggii weerar ku qaadi rabay dalkooda ayadoo sirdoonka Maraykanka uu wadanka Thailand uu ku leeyahay xarun sirdoon oo aad u weyn given the sophisticated nature of the American government. sida dhabta ah haddaan eegno xukuumadda Maraykanka iyo sirdoonadeeda sida CIA-da iyo FBI-da taageero wacan ay ka haystaan Thailand iyo Philippines iyo wadamada dhaca bariga Aasiya ku yaal waxay u muuqdaan inay indhaha ka laabteen ayaga oo lumiyay raadadkii raggaasi Suddenly they were not able to be monitored. haddaba waxaa soo gaaray madaarkii California Hazmi iyo Mihdaar bishii January sanadkii 2000 waxaana soo gaaray garoonkani madaxdii weerarka fulin rabtay weerarkii Maraykanka wuxuu ahaa mid laga hortagi karay haddii raggaasi dabagal lagu samayn lahaa haddiiba ay run tahay arrintaasi jiritaankeeda The FBI said
CIA never told us. FBI-da waxay dhaheen CIA-da inooma sheegin dhicitaanka shirkaasi. haddii aan ogaan lahayn waan ka hortagi lahayn. CIA-dan waxay leedahay way ogaayeen qaybaha ka hortaga arrimaha argagixisada FBI-da. taasina waa mid dhab ah. waxaa halkaasi u joogay 6 ilaa 7 xubnood oo FBI-da u shaqaynayay. 6 or 8 FBI people. haddaba waxaa cad in FBI-da ay ogeed laakiin madaxdoodii aysan arrinkaasi ku wargelin dhammaan laamaha ammaanka ay hawshaasi qusaysay. haddaba qisada sidaasi kuma dhammaan laakiin waxay ku bilaabatay sidaani. xamsi iyo mixdaar waxa ay soo mareen masjidka Malik Fahad ee Los Angeles soo dhowayntii martida. waxayna sheegaysaa warbixinta guddiga dabagalka Mareykanka in Khalid Sheikh Mohammed uu u soo diray halkaani si ay kula kulmaan qof iyaga halkaasi ku sugay. maqaaxi u dhow masjidka ayay kula kulmeen qof u shaqaynayay qunsuliyadda Sacuudiga magaciisuna uu ahaa Umar al-Bayubi wuxuuna sheegay inuu kula kulmay halkaasi. San Diego waa goob muhiim ah. waxay isku xirtaa waqooyiga iyo koonfurta galbeedka iyo bariga. intii aan baaritaanka wadnay waxaan ka baaray magaca Umar Ahmed Bayumi kombiyuutarka dawladda dhexe. waxaan ogaaday Umar inuu dalkaasi u yimid inuu halkaasi wax ka barto. waxaa ninkaasi laga dalbay inuu dhiso masjid lagu magacaabo Al-Akraad laakiinse magaca dhabta ah wuxuu ahaa Masjidul Madiinatul Munawwara. waxaase xilka qabashada masjidkaasi shardi looga dhigay inuu noqdo madaxa ugu sareeya ee masjidkaasi. maalintaasi galinkeedii dambe waxaa soo muuqday Bayumi oo ay garbihiisa taagan yihiin Nawaaf al-Hazmi iyo Khalid al-Mixdaar iyagoo halkaasi lagu baray wiil dhalinyaro ah oo reer Yemen ah magaciisuna uu ahaa Mixdaar Cabdallah. waxaynu isku daynay inaan wiilkaasi ka raadino meel waliba ilaa aan kolkii dambe aan ka helnay dalkaasi Yemen gudihiisa. قدمهم إليك أنهم طالبين waxaa la igu baray inay ahaayeen 2 arday ama dad booqasho u yimid Los Angeles gaar ahaan San Diego iyo inay heli karaan fursad waxbarasho gaar ahaan dhanka afka Ingiriisiga. في إيجاد معهد مناسب لتعليم اللغة الإنجليزية وإشراكهم فيه أو التحاق فيه. waad ku kaalmaysay Soomaa hawshaasi. لنوع في نوع ما نعم. si waliba ha ahaatee waxaa dhab ahayd in Mareykanka uu helay muuqaalada raggaasi oo saxda ah. haddaba raggii weerarka fuliyay waxay Mareykanka ku galeen magacyadoodii dhabta ahaa iyo waraaqadaha dalkugalka saxda ahaa iyo waliba baasabooro sax ahaa. laakiin waxaaba daliil cad ahayd in teleefoonadoodii guriga San Diego uu sax ahaa iyo ciwaankoodii gurigaba. Hazmi iyo Mixdaar waxay ahaayeen rag degan guryahani isku go'an waliba iyaga u muuqday inay ku qaylinayeen kaalaya ina xira laakiin qofna uma aysan imaan. laakiin waxaa ka sii yaab badnayd markii ay la soo dageen qof u shaqaynayay hay'adda FBI-da. haddaba muddo bil ka hor ahayd Mareykanka waxay iska lumiyeen fursad kale ay ku qaarijin kareen Bin Laden laf ahaantiisa. howlgal ay samaysay diyaaradaha laga hago meelaha fog ayaa isku dayday inay madaafiic ku garaacdo Usaama oo ninka xiran dharkaasi cad isla markaana kula kulansanaa Qandahar rag ka yimid dalkaasi Imaaraadka Carabta. Among them one very much taller than the other. waxaa ku jiray nin ay aad u qadirinayeen badankooda. waad arki kartaa adigaba marka go'aan waxa lagu gaaray in hal saaruq lagu gamo dhamaantood laakiin qof ayaa fikradaasi ka hor yimid oo yiri bini'aadanimadu way ka fog tahay. Good idea. It wasn't worth taking the risk. If it had gone ahead, it would have killed. haddii howlgalkaasi la fulin lahaa Bin Laden wuu dhiman lahaa shaki la'aan laakiin aqalka cad ayaa ka meermeeray go'aankaasi marka iyaga ayaa diiday howshaasi in la fuliyo. Decided that they could go ahead. fursad kale oo dahabi ahayd ayaa mar saddexaad soo martay Mareykanka ayaga oo kaashanaya qabiilo degan Qandahar waxaana howlgalkaasi uu ahaa in Usaama la soo qabto ama in la dilaba. waa kan marqaati howlgalkaasi qayb ka ahaa. But we had gone so far as to take a look at that compound. waxaan soo gaarnay meel aan ka arki karno mucaskarkii waan fahnay halka uu ku sugnaa Bin Laden. waxaa goobta ahayd meel 3 qaybood ahayd meel isaga ayaa ku jiray iyo meel qoyskiisa ay ku sugnaayeen iyo goob madaxda sare ay ku sugnaayeen
isagu wuxuu ku sugnaa goobta dhexda ku tiilay innagana yoolkeenna halkaas ayuu ahaa haddii aan ku guulaysan lahayn waxaan u qaadan lahayn meel aad u fog isaga waynu xiri lahayn islamarkaana la duuli lahayn bin laadin We would have flown in and arrested bin Laden. Whether or not these would be successful operations. haddii howlgalkaasi lagu guulaysan lahaa ama haddii kaleba haddana waxaa jiray jidgooyo hortiilay ciidamada howlgalkaasi midaasi oo CIA-da dhankeeda ka imaanaysay mana aysan doonaynin in howlgalkaasi uu dhaco We're very reluctant to undertake any kind of action whatsoever. bishii May sanadkii 2000 Xasmi iyo Mixdaar waxay bilaabeen in ay raadiyaan goob lagu barto diyaaradaha ayadoo aan taasi ka duulayno ayaan waxaan wareysanay maamulka goobta diyaaradaha lagu barto He came around I was sitting in front of my office on a table. waxay igu yimaadeen aniga oo ku sugan xafiiskayga wuxuuna igu yiri isaga oo dhoola cadeynaya waxaan doonayaa in aan duuliyo diyaaradda Point waxaan ku yiri dhammaanteena ayaa doonaynaa hagista diyaaradda Point waa Nawaas kadibna waxaan ku wareejiyay Rich Karza wax badanna uma aanan sheekeenin arinta Really, they were in touch with Rich Karza. I didn't talk to him that much. And at that time they offered to pay me more to help them out. xilligaasi waxay ii soo bandhigeen lacag badan si aan ugu kaalmeeyo barashadoodii diyaaradaha laakiin waxaan u sheegay inaanan awoodin ilaa ay ka soo bartaan luqadda haddana waxay iga dalbadeen inaan ku baro diyaaradda Point diyaaradaha aan dhaqdhaqaaqin ee tababarka lagu sameeyo markii halkaasi taagan tahay ayaan ku qoslay maxaa yeelay ma fahmi karaan qalabka sidee ayay diyaarad weyn ku hagi karaan Understand or grasp the concept of how flight training progresses. haddaba rajadii Xasmi iyo Mixdaar waxaa ka hor yimid carqalad hor leh markaanina waxay u dhaqaaqeen in ay la soo tashadaan hoggaankoodii sare haddaba go'aan ka yimid madaxdoodii ayaa Xasmi loo sheegay in ku-xigeen kala shaqeeya howlgalkaasi loo sameeyey waa Maxamed Cada waxay ahayd bilowgii sanadkii 2000 wuxuuna soo gaaray Maxamed Mareykanka si uu halkaasi kula kulmo Marwaanul Shixi isla markaana ay ku kulmaan goobta diyaaradaha lagu barto ee Phoenicia galbeedka Florida si ay howlgalkaasi u bilaabaan Siyaad Jaraax wuxuu isagana yimid iskuulkan diyaaradaha lagu barto oo isla wadadaasi ku yaala waana kuwan howlgalkoodii bilaabi raba Nobody issued a warning. That's murder on the part of the leadership of. Your government failed you.